Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaari meel kastaad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha halo maalin kastaad kala socotaan barteena youtube-ka ee ciyaaraha latest tube ku soo dhawaada muuqaalkan cusub aan maanta koogi doono wararka ugu dambeeya ciyaaraasi waxaanu eegi doonaa kulamo ka tirsan horyaalka Premier League oo la filay maanta la ciyaaro iyo dabcan waxaa jira kulamooyin kale oo dhowr ah oo la baajiyay caaladaha COVID-19 awgeeda runtii waxaa jira kulamood mooda in iminka soo kale isbedeli doono miiska kala horeynta horyaalka ee dalkaas Ingiriiska haddii kulamada maanta la ciyaaro si wax ku caawin ayaa qaarkood ciyaari doono waxaa soo kale eegi doona xanta suuqa kala iibsiga ciyaaraha ayaanu eegi doona haddaad nagu cusub tahay subscribe noo sar haddaad naga mitana like nu dhiirigelisaano helna saaxiibo wanaagsan sida adoo kaleetiya runtii waxaad moodaa maanta waa maalin acad ah waxaana ku beegan tahay maalinta loo yaqaano the boxing day waa 26 bisha December sanadka 2021 marka haddii aanayno kulamada maanta la filay in la ciyaaro ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska EPL ahna kan ugu daawashada badan caalamka ayaanu eegi doonaa aan falaqayn doonaa aan soo kale eegi doonaa rajada kocoonka maanta la filay in la ciyaaro ee ka tirsan dalkaas Ingiriiska kulanka ugu horeeya ay wuxuu dhaci doonaa saacada Geeska Afrika markay tahay 6 galabnimo kulankaasi wuxuu dhexmari doonaa naadiga Manchester City ahna kooxda difaacanaysa horyaalka dalkaas Ingiriiska waxay soo dhaweyn doontaa ama se ay martigelin doontaa naadiga Leicester City runtii waa kulan derby ah waana kulan la sugayaa maanta in la daawado kooxda kubadda cagta Man City mooda inta badan inay taam yihiin ay diyaar yihiin kulanka inay qaabilaan naadiga Leicester City soo kale kooxda kubadda cagta Man City ayaa horkacaysa ama hogaaminaysa horyaalka dalkaasi ee EPL-ka waxaan ay leeyihiin 48 dhibcood runtii maanta haddii badis waxaad moodaa inay si dheerasanayso horyaalka dalkaasi kooxda kale ee la filay in la ciyaaro ka tirsan isla horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta Arsenal the Gunners aad moodaa in maalmahan la qamala ayaa waxay sidoo kale ay martigelin ama ay marti noqon doontaa naadiga Norwich City aad moodaa inay tahay kooxaha ugu dambeeya dhanka miiska kala horeynta horyaalka EPL-ka haddii aan eegno runtii waa kulan looga fadhiyo kooxda kubadda cagta the Gunners inay badiso si ay u soo dhawaato kooxda kubadda cagta Blues inkastoo ognahay in Arsenal iminka ay ku jirto kaalinta saddexaad xagga kala horeynta horyaalka dalkaasi Arsenal ayaa moodaa kulamada ugu dambeeyay inay gool gaarayso guusha maanta ka gaari doonto naadiga Norwich ayaa soo kooltay fursad siinaysa inay ku sii dhawaato naadiga Chelsea sidoo kale kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa waxay martigelin doontaa ama ay soo dhaweyn doontaa kooxda Crystal Palace uu hogaaminayo horkacayo laacibkii hore kooxda kubadda cagta the Gunners Patrick Vieira sidoo kale kooxda Spurs waxaa maamulo ama macallin u ah macalinka hore naadiga Chelsea Conte ahna macallin hore naadiga Inter Milan runtii kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa soo kale la dhihi kara waxay haystaan fursad kale oo dahabi ay ku noqon karto kaalinta saddexaad haddii maanta ka badiso kooxda kubadda cagta Crystal Palace inkastoo la hubin kubadda cagta ama natiijo kasta ka soo bixi karto ayaa ah mid aan la sadaalin karin tababare Conte la sii hadlaya wargeyska The Sky Sports News ayaa sheegay inuu jeclay inuu maanta guul ka gaaro kooxda Crystal Palace si uu soo dhawaado caga iyo kala horeynta miiska siba uu galo top 4 soo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay qaabili doontaa naadiga Aston Villa Chelsea ayaa marti noqon doonto runtii waana kulan kale oo laga fadhiyo ama se imtixaan kale ay mari doonto naadiga Chelsea inkastoo inay kulamada ugu dambeeyay Chelsea aad moodaa in break loo qabanaya Aston Villa ayaa imika waxa maamulo laacib hore naadiga Reds ama Liverpool Steven Gerrard runtii waxaan moodaa Steven Gerrard sugu soo biray kooxda Aston Villa uu gaarsiiyay golooyin muhiim ah ay kooxda u baahan tahay maanta se kooxda kubadda cagta Chelsea break ma qaban doonaan mise way ka badan doonaan waa su'aal inta badan la isweydiinaya siba wargeysyada caalamka kuwa ka falado sportiga aad ay wax ugu qoreen kulanka maanta u dhaxayn doono naadiga Chelsea iyo waliba Aston Villa waxaa jira kulamooyin dhowr ah oo la paajay cudurka halista COVID-19 awgeeda runtii cudurka coronavirus ayaa moodaa inta badan inuu qabsaday dalka Ingiriiska dhowr kulan ayaa la paajay waxaana kamid ah Brighton iyo sidoo kale Brentford ay ciyaari doonaan runtii saacadu markay tahay kooxda habeenimo halka Burnley
iyo Everton la baajiyay soo kaleetay naadiga Liverpool iyo Leeds ayaa la baajiyay halka Wolves iyo waliba kooxda kale Watford iyaguna la baajiyay cudurka halista COVID-19 awgeed inta badan waxaad moodaa in dalka Ingiriiska ay ka soo horjeedaan talaalka loo qaato cudurka COVID-19 ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka dalkaasi 68% ayaa lagu qiyaasaa inay qaateen talaalka halkii haddii aanayno horyaalada kale ee kala duwan ee qaaradaha Yurub inta badan ciyaartoydu ay qaateen talaalka qiyaasan waxa la dhigi karaa 98% waxay qaateen cudurka halista COVID-19 talaalkooda marka Premier League ayaa moodaa inta badan inuu jahwareer ku yimid waxaan la go'aamiyay in horyaalka uu sii socdo xagga xanta suuqa kala iibsiga ciyaaraha haddii aan eegno iminka akhyaaray ciyaaryahan Haaland waa laacib ka tirsan naadiga Borussia Dortmund waana ciyaaryahanka ugu saameynta badan dhanka gool dhalinta ama the best goal scorer haddii aan eegno waxa ciyaaryahankan si waalan u doonaya dhowr kooxood oo ka dhisan qaarada Yurub sida Manchester United Real Madrid Chelsea iyo liwa naadiga Bayern Munich wararka u dambeeyay helan waxa sheegay in kooxda United ay ku dhowdeen inay qaataan ciyaaryahan Haaland sababtoo ah macalinka iminka kooxda naadiga Manchester United Ralph Hammers iyo aabaha dhalay ciyaaryahan Haaland ayaad moodeenayn saaxiibo oo isku wanaagsan runtii isla aabaha dhalay Haaland ayaa wakiilka ciyaaryahan Haaland marka waxaad moodaa in United ay haysato fursad kale oo dahabi ay ku soo qadan karto ciyaaryahan Haaland qiimaha ku qiimeyso kooxda Borussia Dortmund ciyaaryahankan ayaa adduundan 75 milyan hase haatee kooxda kubadda cagta Bayern agaasimahooda guud Oliver Kahn ayaad moodaa inuu doonayo ciyaaryahankani oo soo carageliyo inkastoo ognahay in ciyaaryahan Lewandowski iyo da'diisa ay si weynaanayso Haaland ayaad moodaa inuu ciyaaryahan runtii da'yar ay u baahan tahay kooxda kubadda cagta Bayern Munich hase haatee ilaa imika lama ogo halkuu aadi doono ciyaaryahan Haaland Haaland ayaad moodaa runtii inuu yahay ciyaaryahan muhiim ah koox kastoo qaadato oo anfici doono mustaqbalka soo kaleetay haddii aanu eegno kooxda kubadda cagta Newcastle United waxa uu Newcastle United inay la wareegeen milkiila u dhashay dalkaasi Saudi Arabia marka waxay doonayeen dib u soo celiyaan horyaalka Premier League igalo laacib hore naadiga Manchester United waxa soo kaleetay kooxda Newcastle United ay doonaysa ciyaaryahan Ousmane Dembele laacib ka tirsan naadiga Barcelona runtii Newcastle ayaa doonayso inay kooxdu dib u habeyn ku sameeyso inkastoo iminka ay ku jiraan kaalmo ugu dambeeyo cagaamiska koloreynta horyaalka Premier League waxa soo kaleetay ay kooxda kubadda cagta Newcastle United ay soo kaleetay doonayso ciyaaryahan Antonio Martial laacib ka tirsan naadiga United aad moodaa iminka inuusan boos joogta ka haysanin kooxdaasi Manchester United kabtanka hore naadiga Arsenal Aubameyang ayaad moodaa inuusan ku faraxsaneen joogista naadiga Arsenal iminka waxa doonaya koorkacod oo ka dhisan dalka Talyaaniga siba AC Milan Juventus Inter Milan waxaana loo badinaa inuu ku biiri doono naadiga Juventus haddii ay macquul tahay tababaraha kooxdaasi The Gunners Mikel Arteta ayaa sheegay in iminka aysan qorshe ugu jirin in ay gadaan ciyaaryahan Emerick Aubameyang haasoo haatee ciyaaryahankan oo ciyaaryahankan oo wala waranda wargeeska The Bills ayaa sheegay in afhaantiisa soo jecleen inuu ka tago kooxda kubadda cagta The Gunners balse caaladaha jira iminka ayaad moodaa uu yiri inaan ku faraxsanin joogista Emirates aan la aqaanin soo kaleeta mustaqbalka halka uu yaallo soo kaleeta ciyaaryahankan ayaa moodaa inuu ciyaaryahan muhiim ah waana ciyaaryahan hore naadiga Borussia Dortmund waana ciyaaryahanka ugu mushaarka badan siba toddobaadlaha wuxuu qaatay adduundan 350 ayuu qaatay toddobaadkii caga iyo qaaradaha Afrika haddii aan eegno waxa marro bilaaban doono koobka qaaradaha Afrika loo yaqaano The African Cup of Nations waxaana lagu balansay inuu bilaawdo 9 January sanadka cusub runtii wuxuuna socon doonaa ilaa 6 February arrintan aad moodaa inta badan inay ka soo horjeesteen kooxaha ka dhisan dalka Ingiriiska siba kooxaha weyn The Big Six inta badan haddii uu bilaawdo African Cup of Nations wuxuu saameyn doonaa kooxo dhowr ka tirsan dalkaasi siba kooxda kubadda cagta Liverpool ay waan doonto ciyaaryahan Mane iyo Mohamed Salah waana laba ciyaaryahan oo muhiim ah inta badan ay ku xisaabtamto naadiga Liverpool soo kaleetay kooxda kubadda cagta The Gunners ay way doonto dhowr ciyaaryahan Crystal Palace Chelsea iyo waliba naadiga Man United ayaa dabcan soo kaleetay way doonto dhowr ciyaaryahan ay ka mid yihiin Bailey iyo Omala wararka kale aan heleen waxay sheegayaan in dib loo dhigi doono koobkan qaarada Afrika inkastoo in lagu balansan yahay in African Cup of Nations la ciyaari lahaa
bilaha June iyo July hayse yeeshee cudurka halista COVID-19 awgeed ayaa dib loo dhigay iminka soo kaleete horyaalka Premier League kooxaha codsanay in mar kale dib loo dhigo African Cup of Nations hase haatee ilaa iminka warxad oo ka soo baxay arrintan ku saabsan ma jiraan waxaana iminka wadacajood ugu socda guddiga maamulka kubadda cagta FIFA iyo CAF oo arrintaasi codsiga ay soo jeediyeen kooxaha ka dhisan Premier League iminka hadalladaasi la eegaya hase haatee ilaa iminka war rasmi kayno ma jiraan balse sida caadiga lagu ballamay ayaa la filay in uu bilaado African Cup of Nations saan horu sheegnay 9 January sportiga ciyaaray waana geyntii adigu mahadsantiin waqtigiina waa ibayos eedle ismaadaaf Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya khayari meel kasta aad joogtaan maalin wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta ciyaaraha iyo waliba goosgooska aan eegi doono siba waxaanu diiradda saari doonaa warar ku dambeeya ciyaaraha wargeysyada caalamka waxa ay ka qoreen ayaanu eegi doonaa anagoo soo kaleeto eegi doona ciyaaryahanka u guulasha badan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid amase Los Blancos ayaanu eegi doonaa waxaan soo kaleeto eegi doonaa 7 kamid ah kooxaha ka dhisan dalka Ingiriiska oo aan dib ugu laabanin Serie B-da ayaanu eegi doonaa wax koogow 7 kamid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League aad moodaa in wiligooda aysan dib ugu laabanin Serie B-da taniyo 1992 1993 markii si toos ah loo agaasimay ama se lagu dhawaaqay magaca Premier League dabcan waxaan soo kaleeto eegi doonaa Mohamed Salah ayaan eegi doonaa caaladiisa iyo liba farxadda ciida Christmaska si uu dabaaldegay iyo hadalhayn weyn ka dhaltay arrintaasi ayaan eegi doonaa haddaad nagu cusub tahay subscribe noo soo hadaan naga mitaan like nu dhiirigeliso inoo la saaxiibo wanaagsan haddii aan eegno ciyaaryahanka ugu goolasha badan iminka kooxda Real Madrid ama Los Blancos waa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo waa laaxib iminka ka tirsan naadiga Man United Ronaldo ayaa heesta 450 gool ayuu dhaliyay kooxda Real Madrid waxaana kaalinta labaad ku jira iminka ciyaaryahan Raul ayaa heesta 200 wuxuu heestaa Raul 323 gool ciyaaryahan Karim Benzema ayaa maalmahan la hadal haya inta badan waxaad moodaa ciyaareedkan inuu yahay ciyaaryahan ku goolasha badan kooxda kubadda cagta Real Madrid imika wuxuu u dhaliyay kooxdaasi 299 gool waxaana uu jira oo kaliya ciyaaryahan Raul 25 gool inuu helo soo noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan ee kooxda kubadda cagta Los Blancos inkastoo uu nahay in uusan gaari karin imika goolashu heesto ciyaaryahan Ronaldo sanadkiisa awgeed waxaad moodaa in sanadkiisa uu sii weynaanaya taasi aysan soo kaleeto siinaynin fursad dahabiya uu ku soo qabta ama noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda Real Madrid kaalinta saddexaad waxaa ku jira iminka soo sheegnay ciyaaryahan Karim Benzema aad moodaa inuu 25 gool u jiro inuu soo qabto ama noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda Real Madrid uuna soo galo kaalinta labaad kaalintii afraad waxaa ku jira ciyaaryahan lagu magacaabo De Stefano isagoo leh 308 gool 396 kulan u saftay waxaana kaalinta shanaad ku jiro ciyaaryahan Santinano isagoo leh 290 gool haddii aan ugu laabano ciyaaryahan Karim Benzema waa ciyaaryahan runtii u ciyaaro xulka qaranka Faransiiska waana ciyaaryahanka iminka horkacaya kooxdaasi ee Los Blancos waana kabtanka kooxda ee Real Madrid waxaad moodaa ciyaareedkii la soo dhaafay inta badan gool kulaadka waxaa qaadan jiray ciyaaryahan Sergio Ramos kaasaad moodaa runtii inuu ka booldiray fursadooyin kale oo badan uu soo dhawaan lahaa ciyaaryahan Raul xagga iyo Premier League haddii aan eegno siba waxaan eegi doonaa 7 kamid ah kooxaha aan weligood ugu soo laabanin Serie B-da waxa ugu horeyso aan lambarka koowaad soo qaadanayno waa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa moodaa inaysan dib ugu laabanin xagga iyo Serie B-da waxayna ku guuleysteen horyaalkaasi 3 jeer runtii tan iyo ciligii la asaasay ama loo bixiyay magaca Premier League kooxda labaad waa Everton runtii wiligooda kumaysan guuleysanin horyaalka Premier League hase haatee wiligooda umaysan dhadhacin xagga iyo Serie B-da kooxda saddexaad aan eegayno waa Liverpool runtii wiligooda maysan adin Serie B-da hase ahaatee waxay ku guuleysteen Premier League hal jeer oo kaliya waana ciligii 2019 2020
2020 xilligii coronavirus uu bilowday aad mooday inay ka faa'iideysteen fursadaas dahabiga ayna ku guuleysteen horyaalka ugu horeeya ee Premier League kooxda kale aan eegayno waa naadiga Manchester United aad mooday inay tahay kooxda ugu guuleysiga badan ee horyaalkaasi waxayna qaadeen 13 jeer runtii weligoodana Serie B-da maysan aadin kooxda kale aan eegayno waa Chelsea waxay ku guuleysteen horyaalka 5 jeer weli Serie B-da maysan aadin 2004 2005 aad moodaa in tababare Jose Mourinho the special one aad mooday in uu runtii uu soo kacayay magaca Chelsea aad moodaa in Mourinho ka hor aan la qaanin runtii inkastoo ay tahay koox ka tirsan horyaalka Premier League balse aysan koox awood u leh inay u tartamaan ama ay qaadaan horyaalka EPL-ka balse xilligii Mourinho 2004 laga bilaabo iminka aad moodaa inay ku guuleysteen 5 jeer weligoodna dib u muusay laabadeen Serie B-da kooxda kale aan eegayno waa Brighton runtii inta badan daawadayaasha waa ay la yaaban yihiin kooxda kubadda cagta Brighton maysan u laabadeen weligooda Premier League balse waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Brighton ay soo galeen Premier League 2017 ilaa iminka waa ay joogaan waana markii ugu horeysa ay ku soo biraan EPL-ka haddii aan iminka eegno xaaladda ciyaaryahan Mohamed Salah iyo weliba Christmaska Mohamed Salah ayaad moodaa inuu yahay laacib ka tirsan naadiga Liverpool waana ciyaaryahan ka soo jeedo qaaradda tan Afrika siba dalka Masar waana ciyaaryahan muslima runtii inta badan markuu golasha dhaliyo uu sujuudaya taasaan moodaa inay ku tusayso inuu yahay muslim qaalisa balse waxaa la arkaya isagoo dabaaldegaya farxadda ciida Christmaska inta badan ay dabaaldegaan gaaladu isaga iyo qoyskiisa ayaad moodaa inay soo labisteen runtii aad moodo inay farxad ku qaadeen halkani tan ayaa inta badan loo qaatay ama inta badan wargeysyada ay qoreen in Mohamed Salah uu la dabaaldegaya saaxiibadiisa kale Kristiyaanka ciida Masiixiga inta badan ay dabaaldegaan dadka aan muslimkeen marka arrintan aad moodaa runtii inay shaki gelisay xaaladda Mohamed Salah iyo soo kale wargeyska qaarkood ama Twitter ka waxay leeyihiin Mohamed Salah wuxuu xaq u leeyahay inuu wax kasto sameeyo soo kale uu dabaaldego inkastoo yahay nin muslim hadana soo kale waa ciyaaryahan ay dhaheen wuxuu heystaa cornimo uu wax kasta ku sameyn karo balse haddii aad eegtid diinta muslimka inta badan wacdiska iyo arrimaha sheekay marka ka hadlan waxay leeyihiin ma fiicno in la dabaaldego maalintan sporti ya khayaaray wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غيارة شرفت لي ميل كسات جوجتان كسو دوادا برنامج كفاقلات عيارها برنامج كان مانتيا سيوكاليتيا مقالكا نقصد وحان كو قدونا كل مدى ودن بيلي عياري قادها يوروب سيبا وحان ايقدونا ديرد ساري دونا EPL ka oo habeenku calaasho la ciyaari kooxda kubadda cagta ee Ganes ay moodeen ka caadiyeen semi finalka League 1 ee dalka Ingiriiska soo kaleetii waxaan eegi doonaa kulamada la filay maanta la ciyaaro ka tirsan koobkaasi ee League Cup-ka iyo liba xaaladda naadiga Manchester United ayaanu eegi doonaa inkastoo in kulamo dhowr ay United aysan ciyaarin ay saytay cudurka halista COVID-19 awgeeda balse wararka u dambeeyay United macaayihiin maxaasan ka dareemayna malayaaba kulanka dambeeyay Manchester United dhamaan ciyaartooyda ay diyaar u yihiin ciyaaraan haddaan ugu cusubtahay subscribe noo sar haddaan naga mitaan like noo dhiirigelisana la saaxiibo wanaagsan kulanka Kaliyosh caleeto la ciyaari saxdu markay tahay tobanka habeenimad moodaa inay kooxda kubadda cagta The Gunners ay soo dhaweysay naadiga Sunderland ahna koox ka ciyaarta heerka labaad ee dalka Ingiriiska Arsenal ayaa waxa ay 5-1 ku xasuuqday kooxda Sunderland runtii waxaan moodaa in habeenku xalitiyo habeen kale oo wax daro leh ay soo bandhigtay naadiga Arsenal garoonkooda weyn ee Fly Emirates ciyaaryahan Mbappe ayaa gool ku bilaabay naadiga Arsenal halka ciyaaryahan Nakaya uu saddex lay halkaasi ka dhaliyay soo kale ciyaaryahankooda adeer ee lagu magacaabo Charlie Patino ayaa goolkiisa ugu horeeyay u dhaliyay kooxdiisa The Gunners waana ciyaaryahan daadiisu ay tahay 18 jir waana kulanka ugu horeeyo ay ciyaarto kooxda weyn ee Arsenal uu safto goolkiisana wuxuu ku qaatay inuu ku dhaliyo 12 daqiiqo gudaheeda ciyaaryahan Patino ayaa moodaa inuu yahay ciyaaryahan mustaqbal kule kubadda cagta soo kale waana ciyaaryahan la dhihi karo uu la qabsan karaa qaab ciyaareedka iminka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta The Gunners uu leeliyo laacibkooda hore ee Mikel Arteta
si walba ay noqotay kooxda kubadda cagta ee The Gunners ayaa iska xaadirsay semi-finalka EFL-ka waxaana la filayaa in isku adka la sameyn doono maanta haddii kulamada kaleeto soo idlaatiyo kulamada kaleeto ayaa la ciyaari doonaa caawa saacadu markay tahay 10:45 daqiiqo saacada geeska Afrika kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay marti doon doontaa naadiga Brentford ayaa ah koox imika ka tirsan horyaalka Premier League aad moodo kulan ku dambeeyay la ciyaartay naadiga kooxda Chelsea ay si qilqila hal eber uga badisay kooxdaasi Brentford ayaa moodo runtii inay aad wax uga dhigayaan agayo Premier League kulankii caawa aad moodo runtii inuu yahay kulan aan sahleen kooxda kubadda cagta Chelsea kulamada ugu dambeeyay aad moodo inay inta badan ay ku dhameysteen barajo caawasi maxaa laga filayaa kooxda maamuro tababare TT may u gudbi doonaan semi-finalka soo kaleetay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay caaw qaabili doontaa naadiga Leicester City waana kulan kale oo darbiya waana kula wada sugaya runtii labada kooxood ayaa mooday inay ka wada tirsan horyaalka Premier League kulanka caawa kulan ka tirsan koox kasta doonayso inay u gudubto cagaya semi-finalka marka kulankan ayaa mooday in caaw ka dhax doono garoonka Anfield inta badan koobkan League One-ka inta badan waxaa fursad la siiyay ciyaartoyda da'da yar siba ku jiro akademiyada naadiyaasha kala duwan inka waxaan moodaa balse in inta badan waxay ku xisaabtamaan inay ku guuleystaan koob ciyaareed kasta marka kulanka caawaad moodaa in Leicester la filaya inay soo dhaweyn inay la ciyaari doonto naadiga Reds soo kaleetay kulanka kale jira Tottenham Hotspur waxay soo dhaweyn doonaan naadiga West Ham United inkastoo in West Ham ciyaareedkan ay tahay runtii koox aad u soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan loona bogay runtii waana ciyaaryahan runtii la dhigi karo waa derby labada kooxood wax kala dhisan magaalada London soo kale tababaraha cusub naadiga Tottenham Hotspur ayaa doonaya in kooxda kubadda cagta Tottenham kula guuleysto koobkooda u horeeyay ebid Tottenham ayaa moodaa inta badan in aysan ku guuleysanin koobka laga ciyaaro oo horyaalka dalkaasi haday noqoto Premier League FA Cup-ka League One-ka iyo waliba koobka kale Community-ga balse caawa waa kulan muhiim ah tababare Conte soo kale tababaraha kooxda West Ham United tababare David Moyes ayaa soo kale doonaya in kooxdiisa uu gaarsiyo final ama se uu kala guuleysto koobun kooxda kubadda cagta West Ham ayaa moodaa inay soo reebeen labada Manchester United iyo waliba Manchester City caawa sayaala wada sugaya inay Tottenham xasuuqi doonto soo kale haddii aan cagayo kooxda kubadda cagta ee naadiga Manchester United waxaan moodaa in United aysan ciyaarin kulamada ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League siba laba kulan ayaa saay kaasaan moodaa in loo xabsi qabo in inta badan ciyaartoyda muhiimka ah naadiga United ay la dhacayaan cudurka halista ee COVID-19 tababarka buuxa ee naadiga Manchester United waxaa ka soo qayb galay shalayto dhowr ciyaaryahan ay ka mid yihiin Rashford, Varane, McTominay, Fred, Greenwood, Shaw, Lingard, Matthias Zaha, Antonio Martial, Bailey, Wan-Bissaka, Cavani, Lindelof, Fernandes, Ahmad, De Gea, Telles, Matic soo kale 10 daqiiqo kadib ayaad moodaa in ay tababarka iska baxeen ciyaartoyda kale ah Greenwood, Luke Shaw, Lingard soo kale waxay iska tageen Carrington's Training Center kaasad moodaa inta badan inaan loogeen sababaha uga tageen balse waxa la dhigi karaa sababaha jira awgeeda soo kale ciyaartoyda aan shalayto soo caadirin tababarka buuxa naadiga Manchester waxaa kamid ah Ronaldo, Van de Beek, Pogba, Dalot, Sancho, Jones soo kale Henderson ayaa lagu arkay tababarka naadiga Manchester United maalmaha ugu dambeeyay waxaa la isdhigi karaa in kooxda kubadda cagta United wali ay la dhibaateynayso halista cudurka halista COVID-19 kulamada dambe la filaya Manchester United in ciyaarto ka dhaxdano garoonka Old Trafford ayaa moodaa runtii inuu yahay kulan inta badan la eegaya caaladaha jira awgeeda siba taageerayaasha naadiga Manchester United ayaa waxay ku qasbayeen ciyaar inta taageero walba oo doonaya inuu daawado kulanka ciyaga ee naadiga Manchester United ku ciyaari doonto garoonkooda weyn ee Old Trafford ay ku qasbayeen inay la yimaadaan shahaadada muujinayso inay qaateen talaalka cudurka halista COVID-19 tani aad moodaa in inta badan ay qasab ku tahay cid walba oo taageera naadiga Manchester United tani aad moodaa in United ay bilaawi doonto balse kooxaha kale oo dhan ay ku qasbanaan doonaan in taageero walba oo aadaya garoonka daawanaya kulan kasta ay kooxdiisa ciyaariso
in uu muujiyo ama uu la soo baxo ama uu la tago shahaadada tusayso inuu qaatay talaalka cudurka halista ee COVID-19 waana muhiim runtii waxaad moodaa dalka UK inta badan inuu ka mid yahay dalalka ku yaalo qaaradda Europe inta badan la dhacalayaan cudurka halista ee COVID-19 ayaad moodaa iminka inuu soo rogaal celiyo waxaana jiro cudurka la yiraahdo micron varieties kaasoo kale laga xabsi qaba barnaamijkii sportiga aad kala socoteen ciyaaraha la testo aqayaaray wanaagta aad ayaan u mahadsantiin waqtigiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري ميل كاستاد جوجتان كسو دوادا برنامج كعيارها هلو مالين كاستاد كلا سعوديان بارتينا يوتيوب كا عيارها لاتيس توبي كسو دوادا مقال كان عصوب المانتو كوغ دونو wararka ugu dambeeyay raasi waxaanu eegi doonaa kulamo ka tirsan horyaalka Premier League oo la filay maanta la ciyaaro iyo dabcan waxaa jira kulamooyin kale oo dhowr ah oo la baajay caaladaha COVID-19 awgeeda runtii waxaa jira kulamood mooda in iminka soo kale isbedeli doono miiska kala horeynta horyaalka ee dalkaas Ingiriiska haddii kulamada maanta la ciyaaro si wax ku caaweyn ayaa qaarkood ciyaari doono waxaa soo kale eegi doona xanta suuqa kaliibsiga ciyaaraha ayaanu eegi doona haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar haddaad naga mitana like nu dhiirigelisaan helna saaxiibo wanaagsan sida adoo kaleetiya runtii waxaad moodaa maanta waa maalin acad ah waxaanay ku beegan tahay maalinta loo yaqaano the boxing day waa 26 bisha December sanadka 2021 marka haddii aanayno kulamada maanta la filay in la ciyaaro ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska EPL ahna kan ugu daawashada badan caalamka ayaanu eegi doonaa aan falaqayn doonaa aan soo kale eegi doonaa rajada kocoonka maanta la filay in la ciyaaro ee ka tirsan dalkaas Ingiriiska kulanka ugu horeeya ay wuxuu dhaci doonaa saacada Geeska Afrika markay tahay 6 galabnimo kulankaasi wuxuu dhexmari doonaa naadiga Manchester City ahna kooxda difaacanaysa horyaalka dalkaas Ingiriiska waxay soo dhaweyn doontaa ama se ay martigelin doontaa naadiga Leicester City runtii waa kulan derby ah waana kulan la sugayaa maanta in la daawado kooxda kubadda cagta Man City mooda inta badan inay taam yihiin ay diyaar yihiin kulanka inay qaabilaan naadiga Leicester City soo kale kooxda kubadda cagta Man City ayaa horkacaysa ama hogaaminaysa horyaalka dalkaasi ee EPL-ka waxaan ay leeyihiin 48 dhibcood runtii maanta hadii badis waxaad moodaa inay si dheerasanayso horyaalka dalkaasi kooxda kale ee la filay in la ciyaaro ee ka tirsan isla horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta Arsenal the Gunners aad moodaa in maalmahan la qamala ayaa waxay sidoo kale ay martigelin ama ay marti noqon doontaa naadiga Norwich City aad moodaa inay tahay kooxaha ugu dambeeya dhanka miiska kala horeynta horyaalka EPL-ka haddii aan eegno runtii waa kulan looga fadhiyo kooxda kubadda cagta The Gunners inay badiso si ay u soo dhawaato kooxda kubadda cagta Blues inkastoo ognahay in Arsenal iminka ay ku jirto kaalinta saddexaad xagga kala horeynta horyaalka dalkaasi Arsenal ayaa moodaa kulamada ugu dambeeyay inay gool gaarayso guusha maanta ka gaari doonto naadiga Norwich ayaa soo kooltay fursad siinaysa inay ku sii dhawaato naadiga Chelsea sidoo kale kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa waxay martigelin doontaa ama ay soo dhaweyn doontaa kooxda Crystal Palace oo hogaaminaya horkacayo laacibkii hore kooxda kubadda cagta The Gunners Patrick Vieira sidoo kale kooxda Spurs waxaa maamulo ama macallin u ah macalinka hore naadiga Chelsea ee Conte ahna macallin hore naadiga Inter Milan runtii kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa soo kale la dhihi kara waxay haystaan fursad kale oo dahabi ay ku noqon karto kaalinta saddexaad haday maanta ka badiso kooxda kubadda cagta Crystal Palace inkastoo la hubin kubadda cagta ama natiijo kasta ka soo bixi karto ayaa ah mid aan la sadaalin karin tababare Conte la sii hadlaya wargeyska The Sky Sports News ayaa sheegay inuu jeclay inuu maanta gool ka gaaro kooxda Crystal Palace si soo dhawaado caga iyo kala horeynta miiska siba uu galo top 4 soo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay qaabili doontaa naadiga Aston Villa Chelsea ayaa marti noqon doonto runtii waana kulan kale oo laga fadhiyo ama se imtixaan kale ay mari doonto naadiga Chelsea inkastoo inay kulamada ugu dambeeyay Chelsea aad moodaa in break loo qabanaya Aston Villa ayaa imika waxa maamulo laacib hore naadiga Reds ama Liverpool Steven Gerrard runtii waxaan moodaa Steven Gerrard sugu soo biray kooxda Aston Villa uu gaarsiiyay golooyin muhiim ah ay kooxdu u baahan tahay maanta se
kooxda kubadda cagta Chelsea break ma u qaban doonaan mise way ka badin doonaan waa su'aal inta badan la isweydiinaya siba wargeysyada caalamka kuwa ka falada sportiga aad ay wax ugu qoreen kulanka maanta u dhaxayn doono naadiga Chelsea iyo waliba Aston Villa waxaa jira kulamooyin dhowr ah oo la paajay cudurka halista ee COVID-19 awgeed runtii cudurka coronavirus ayaa moodaa inta badan inuu qabsaday dalka Ingiriiska dhowr kulan ayaa la paajay waxaana kamid ah Brighton iyo sidoo kale Brentford ay ciyaari doonaan runtii saacadu markay tahay kowda habeenimo halka Burnley iyo Everton la baajiyay soo kale naadiga Liverpool iyo Leeds ayaa la baajiyay halka Wolves iyo waliba kooxda kale Watford iyaguna la baajiyay cudurka halista COVID-19 awgeed inta badan waxaad moodaa in dalka Ingiriiska ay ka soo horjeedaan talaalka loo qaato cudurka COVID-19 ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka dalkaasi 68% ayaa lagu qiyaasaa inay qaateen talaalka halkii haddii aanayno horyaalada kale ee kala duwan ee qaaradaha Yurub inta badan ciyaartoydu ay qaateen talaalka qiyaasaan waxaa la dhihi karaa 98% waxay qaateen cudurka halista COVID-19 talaalkooda marka Premier League ayaa moodaa inta badan inuu jahwareer ku yimid waxaan la go'aamiyay in horyaalka uu sii socdo xagga waxanta suuqa kala iibsiga ciyaaraha haddii aan eegno iminka akhyaaray ciyaaryahan Haaland waa laacib ka tirsan naadiga Borussia Dortmund waana ciyaaryahanka ugu saameynta badan dhanka gool dhalinta ama the best goal scorer haddii aan eegno waxa ciyaaryahankan si waalan u doonaya dhowr kooxood oo ka dhisan qaarada Yurub sida Manchester United Real Madrid Chelsea iyo waliba naadiga Bayern Munich wararka ugu dambeeyay helan waxa sheegay in kooxda United ay ku dhowdeen inay qaataan ciyaaryahan Haaland sababtoo ah macalinka iminka kooxda naadiga Manchester United Ralph Hasenhuttl iyo aabaha dhalay ciyaaryahan Haaland ayaad moodeenayn saaxiibo oo isku wanaagsan runtii isla aabaha dhalay Haaland ayaa wakiilka ciyaaryahan Haaland marka waxaad moodaa in United ay haysato fursad kale oo dahabi ay ku soo qadan karto ciyaaryahan Haaland qiimaha ku qiimeyso kooxda Borussia Dortmund ciyaaryahankan ayaa adduundan 75 milyan hase haatee kooxda kubadda cagta Bayern agaasimahooda guud Oliver Kahn ayaad moodaa inuu doonayo ciyaaryahankani oo soo carageliyo inkastoo ognahay in ciyaaryahan Lewandowski iyo da'diisa ay si weynaanayso Haaland ayaad moodaa inuu ciyaaryahan runtii da'yar ay u baahan tahay kooxda kubadda cagta Bayern Munich hase haatee ilaa imika lama ogo halkuu aadi doono ciyaaryahan Haaland Haaland ayaad moodaa runtii inuu yahay ciyaaryahan muhiim ah koox kastoo qaadato oo anfici doono mustaqbalka soo kale haddii aanu eegno kooxda kubadda cagta Newcastle United waxa ognahay Newcastle United inay la wareegeen milkiila u dhashay dalkaasi Saudi Arabia marka waxay doonayeen dib u soo celiyaan horyaalka Premier League igalo laacib hore naadiga Manchester United waxa soo kale kooxda Newcastle United ay doonaysa ciyaaryahan Ousmane Dembele laacib ka tirsan naadiga Barcelona runtii Newcastle ayaa doonayso inay kooxdu dib u habeyn ku sameyso inkastoo iminka ay ku jiraan kaalmo ugu dambeeya cagaamiska koloreynta horyaalka Premier League waxa soo kale ay kooxda kubadda cagta Newcastle United ay soo kale doonayso ciyaaryahan Antonio Martial laacib ka tirsan naadiga United aad moodaa iminka inuusan boos joogta ka haysanin kooxdaasi Manchester United kabtanka hore naadiga Arsenal Aubameyang ayaad moodaa inuusan ku faraxsaneen joogista naadiga Arsenal iminka waxaa doonaya kooxood oo ka dhisan dalka Talyaaniga siba AC Milan Juventus Inter Milan waxaana loo badinaa inuu ku biiri doono naadiga Juventus haddii ay macquul tahay tababaraha kooxdaasi The Gunners Mikel Arteta ayaa sheegay in iminka aysan qorshe ugu jirin in ay gadaan ciyaaryahan Emerick Aubameyang haasoo haatee ciyaaryahankan oo ciyaaryahankan oo wala waranda wargeeska The Bills ayaa sheegay in afhaantiisa soo jecleen inuu ka tago kooxda kubadda cagta The Gunners balse caaladaha jira iminka ayaad moodaa uu yiri inaan ku faraxsanin joogista Emirates aan la aqaanin soo kaleeta mustaqbalka halka uu yaallo soo kaleeta ciyaaryahankan ayaa moodaa inuu ciyaaryahan muhiim ah waana ciyaaryahan hore naadiga Borussia Dortmund waana ciyaaryahanka ugu mushaarka badan siba toddobaadlaha wuxuu qaatay adduundan 350 ayuu qaatay toddobaadkii caga iyo qaaradaha Afrika haddii aan eegno waxa marro bilaaban doono koobka qaaradaha Afrika loo yaqaano The African Cup of Nations waxaana lagu balansay inuu bilaawdo 9 January sanadka cusub runtii wuxuuna socon doonaa ilaa 6 February
arrinteeni aad moodaa inta badan inay kasoo horjeesteen kooxaha ka dhisan dalka ingiriiska siba ku caaween the big six inta badan haddii uu bilowdo African Cup of Nations wuxuu saameyn doonaa kooxo dhowr ka tirsan dalkaasi siba kooxda kubadda cagta Liverpool ay waan doonto ciyaaryahan Mane iyo Mohamed Salah waana laba ciyaaryahan oo muhiim ah inta badan ay ku xisaabtamto naadiga Liverpool soo kaleeto kooxda kubadda cagta The Gunners ay waan doonto dhowr ciyaaryahan Crystal Palace Chelsea iyo waliba naadiga Man United ayaa dabcan soo kaleeto waan doonto dhowr ciyaaryahan ay ka mid yihiin Bailey iyo Omala wararka kale aan heleen waxay sheegayaan in dib loo dhigi doono koobkan qaaradda Afrika inkastoo in lagu balansan yahay in African Cup of Nations la ciyaari lahaa bilaha June iyo July hayse yeeshee cudurka halista COVID-19 awgeed ayaa dib loo dhigay iminka soo kaleete horyaalka Premier League kooxaha codsanay in mar kale dib loo dhigo African Cup of Nations hase haatee ilaa iminka warxad oo ka soo baxay arrintan ku saabsan ma jiraan waxaana iminka wadacajood u socda guddiga maamulka kubadda cagta FIFA iyo CAF oo arrintaasi codsiga ay soo jeediyeen kooxaha ka dhisan Premier League iminka hadaladaasi la eegaya hase haatee ilaa iminka war rasmi kayno ma jiraan balse sida caadiga lagu ballamay ayaa la filay in uu bilowdo African Cup of Nations saan horu sheegnay 9 January sportiga ciyaaray waana geyntii adigu mahadsantiin waqtigiina waa ibayos eedle isma dhaaf